waxaan maanta idinla socodsiinayaa in ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya ay soo gaareen magaalada Geneva sababta uu yimaadeenna ay tahay inay ka qayb qaataan shirweyne caalami ah oo halkan lagu qabanayo oo la yiraahdo Global Refugee Forum ra'iisul wasaaraha waxa ku weheliya wafdigiisa laba wasiir oo kala wasiir Jamaal Xasan iyo wasiir Xamza Saciid Xamza waxa kale oo iyadana la socota Aamina Saciid oo ah gudoomiyaha qaranka arrimaha refujiga qaxootiga inta kadib ra'iisul wasaaraha hadii aan leedmo waxa uu la kulmayaa madax badan buu la kulmayaa madaxda waxa kamid ah madaxweynaha Turkiga waxa kale oo kamid ah wafdi ka socda World Bankiga iyo European Unionka marka gadaal badan kala soo socodsiin doona hadii aan leedmo waxaan rajaynaynaa shirku inuu ku dhamaado si wanaagsan waxayna la joogayaan wafdigu muddo 3 maalmood hadii aan leedmo aan halkan u joognaa inaan ka qayb galno sanadkan shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga adduunka si xal loogu heli lahayd waxaan la soconaa wafdi oo hogaaminayo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiir Jamaal iyo staff kale waxaan meeshan rabnaa in laga gaarshan waxa laga hadlayo qorshaha oo 5 sano soo socdo si wax loo gaari lahayo marka ballan qaadyada aan qaadi doono aniga ka dawlad ahaan iyo waxyaabaha looga hadlayo 5 soo socno waa plankaas aan ka qabaneen si xal waar looga helo arrimaha qaxootiga Afrika shirka wuxuu bilaabanayaa maanta wuxuu soconaa ilaa 18